Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada Geela Bashiir Academy. Waa online school loogu talagalay in dhalinyarada Soomaalida ay ka bartaan xirfadaha casriga ah iyo aqoon cusub iyagoo gurigooda jooga. Haddaba waxaan isla eegi doonaa si aad iskuulka wax uga baratid waa inaad markoobaadka iska diiwaan gelisid. Haddaba si aad iskaga diiwaan geliso markoobaadka waxaa soo sii garaysa Chrome kuugu jira browser kuugu jira sida Chrome ama kuwa kalaba. Waxaad ku qoraysaa Geela Bashiir Academy baa ku qori. Geela Bashiir Academy ku qorto waxaa ku soo bixi doona website-ka iskuulka oo kan ah. Deeto waxaad tagi doontaa halka ay ku qoran tahay login markaad click siiso waxaa ku soo bixi doona page-kan. Haddii aad arday cusub tahay waxaad halkan gelin doontaa email-kaaga xaggan markaad geliso halkanna waxaad samaysan doontaa password. Email-ka iyo password-kaas wuxuu noqon doonaa kuwa aad ku geli doonto marka aad galayso markaad website-ka soo galayso qaybtan login-ka ka soo galayso. Already haddaad sii haysatay email iyo password-na halkan baad gelin doontaa. Anagu iminka email-kii waan gelin email-ku inima muuqdo laakiin email-kii waxaan gelinayaa password. Deeto waxaan taaban doonaa halka register ku qoran tahay. Markaad register taabato waxaa ku soo bixi doona iskuulka account-kaad ku lahayd xagga ay page-kan ay ku qoran tahay my account oo ah page-kaad ku lahayd iskuulka. Halkan iminka zero course baa ku qoran. Markaad koorsooyin gadatid courseska inta courses haysatay xaggan kuugu soo baxaysa intaad dhamaystirtay. Sidoo kale inta maad aragtay certificate haysato halkan bay kaaga soo bixi doonaan. maadaama haddaba iminkaan qaabkaas ku register gareynay waxaan haddana isla eegaynaa koorsooyinka iyo xirfadaha lagu barto iskoolka. Markoobaadka waxaad iman doontaa halka ay ku qoran tahay categories. Intanoo category-ba waa lagu dhigtaa xirfadahooda iskoolkan. Hadday noqoto development-iga, hadday noqoto waxyaabaha business-ka iyo ganacsiga la xiriira, finance iyo accounting-ka, video editing iyo photo editing-ka, IT-ga, design-ki, marketing-ki iyo luqadihiiba. Haddaan mid iminka u eegno dhanka development-iga oo kale fundamental of programming baa ka mid oo ah aasaaskii programming-ka iyo sida dee luqadaha programming-ka aasaaskoodii waana luqada C-da. Sidoo kale waxaa ka mid ah Python for beginners ah. Koorsooyin badan baan ka haynaa oo Node.js ay ka mid tahay. Intaasoo course baan ka haynaa marka ay timaado dhanka development-iga iyo web development-iga. Marka ay timaado business-ka xirfadaha aad ka baran kartid iyo koorsooyin ku jira waxaa ka mid ah mid IA-ga sidoo business-kaaga kaaga caawin kara IA dropshipping-kii oo mystery ah Alibaba af Soomaali weliba ku baxay sidaad uga soo adeegan lahayd wax kaste. Sidoo kale e-commerce marketing taabo waan ka haynaa business-ka. Koorsooyinkan ka hayno markay timaado dhanka finance-ka iyo accounting-ka waxaa ka mid ah Duuga oo ah software caana markay timaado dhanka accounting-ka wax badanna qabta. Sidoo kale Microsoft Excel baa ka mid ah. Koorsooyinka forex trade oo A to Z ah min bilow ilaa dhammaad aad ku baranaysid. Forex-ka waa course aad u weyn, xirfad weyn oo qofku hadduu waqti geliyo hadhow wax badan ay uga iman karaan. QuickBook baa ka mid ah. Advanced online QuickBook baa ka mid ah. Sidoo kale cryptocurrency baa ka mid oo ah koorsooyinka uu loogu iibsiga badan yahay uguna manaafacaadka badan leh marka ay timaado iskoolkeena. Marka ay timaado dhanka video editing-ka iyo photo editing-ka waxaan ka haynaa koorsooyinkan oo koorsada koowaad ay tahay content creation-ka. Koorsadani waa koorso qofku ku baranayo siduu ku noqon lahaa content creator. Sida dadka halkan kaaga muuqdo oo kale content kusoo gudbin lahaa ama muuqaal kusoo gudbin lahaa social media. Wuxuu ku baran doonaa min bilow ilaa dhammaad sidoo idea-da ku heli lahaa, sidoo fikradda ku heli lahaa. Waa course dhammaystiran oo qofku markuu dhamaysto uu noqonayo content creation qof dhinac kasta iskaga filan oo muuqaal soo gudbin kara. Waxaa ka mid ah koorsada Adobe Lightroom beginner to advanced baad ku baranaysaa. Haddii aad tahay qof photographer oo imika ku cusub photographer-nimada ama aad rabtid inaad photographer noqotid software-kan waa software-ka sawirrada ugu quruxda badan lagu edit gareeyo. Taasi lamida waxaan haynaa software-ka ugu caansan markay timaado dhanka video editing-ka oo la dhaho Adobe Premiere Pro. CapCut baan ka haynaa oo iyadna software free sidoo kalena ah software friendly interface ah oo qofka ku cusub shaqadu qabanaynay aad u wanaagsan tahay. IT-ga software-ka waxaad ku baran kartaa ethical hacking, sidoo kale Cisco oo networking-kiya baad ku baran kartaa, basic computer baad ku baran kartaa. Koorsooyin kalena way ku jiraan. Marka ay timaado design-ka waxaad ku baranaysaa software-ka ugu caansan marka ay timaado
sawir hagaajinta Photoshop. sidoo kale waxaad ku baran doortaa Canva inteeda masteryga ah. qaybta marketing waxaad ku baranaysaa affiliate marketing, sidoo kale Facebook and Ads digital marketing baa ku baran kartaa, e-commerce marketing baa ku baran kartaa. marketingkii saddexdaa course oo kala duwan hadday noqoto affiliateska sida loo market gareeyo, sidoo kale markay Facebook Ads iyo digital marketing ka noqoto e-commerce iyo marketingkii, intuba waa 3 course oo aad u baaxad weyn. inta luqadaha waxaan ka haynaa course-kan oo ah English grammarka ku dhiganaysa beginner to advanced oo ku dhigaya macalinkan oo khabiir ku ah oo English to English kugu baray Alex. marka koorsooyin badan oo kale way ku jiraan akademiyada, waad ka baari doontaa hadba xirfadii aad rabtaa ayaad ka dooran doontaa. sidoo kale haddii aad u baahan tahay caawimaad ku saabsan in koorsooyinka iyo iskoolka laga caawiyo, waxaad heli karaysaa WhatsApp-ka halkaa hoose kaaga muuqda. WhatsApp numberka iskuulka click baad siin doontaa. markaad ku dhufato wuxuu ku keenayaa WhatsApp-kaaga markaad timaado halkaasaad waxaad uga diri kartaa fariin kasta oo aad u baahan tahay. haddii aad course rabtay in information lagaa siiyo, haddii aad wax kala rabtay, all of wixii caawimeed u baahan tahay halkaas ayaad ka helaysaa, oo keliya waxaad kusoo dhufanaysaa numberka WhatsApp-ka, waana waqtiga ugu koobanna waa lagugu soo jawaabaya sida ugu dhaqsaha badan leh. wixii caawimeed u baahan tahayna WhatsApp-ka ayaad kusoo dhufanaysaa. hadda waxaan kula wadaagayaa qaabka aad u iibsan kartid ama u gadan kartid koorso ka mid ah koorsooyinka iskoolkeena lagu bixiyo. hadda imika tusaale waxaad rabtaa inaad iibsatid koorsadan video editing-ka CapCut, click baad iyada siinaysaa. markaad ku dhufato wuxuu ku soo saarayaa sidan. markuu page-kan ku soo saaro, page-kan xog fiican baad ka helaysaa oo koorasku intuu ka koobnaayo kale, inta cashar uu ka kooban yahay. xitaa waxaad daawan kartaa fiidiyoga hordhaca ah ee lagugu sharaxayo koorasku wuxuu yahay waxyaabaad ku baraysi, xaggan baad ka daawan kartaa. muhiimadeenu imika waxa weeyaan qaabka aad kooraska u iibsan kartid. marka kooraska si aad u iibsatid waxaad imanaysaa qaybta ay ku qoran tahay get start, weliba take this course baa ku dhufan. page-kan wuxuu ku keenayaa check out-ka. markuu page-kan ku keeno, halkan waxaad gelin doontaa magacaaga koowaad, imika tusaale Xasan dheh, halkana last name-keena Axmed oo kale dheh, halkan hoosena waxaad gelin doontaa email-kaagi. ka koowaad waxaad gelinaysaa first name-kaaga, last name-kaaga iyo email-ka. markaad intaa geliso, halkan waxaa kaaga soo muuqanaya haddii aad card ku bixinayso, cardkaagii baad gelin kartaa. Visa card buu noqon karaa, Master card buu noqon karaa. cardkaaga markaad geliso deeto saasaad is order ku dhufanaysaa, saa ayuu course kuugu furmaya. haddii aad Bible haysatidna Bible baad ku furi kartaa. haddaba haddii aad wadankii joogto card iyo Bible midna ku hayn, waad si aad ku haysid ama e-dahab ku haysid, ama aad ku haysid Golis ama Hormuud, wixii aad ku haysatidba waxaad imanaysaa qaybta caawimaadka WhatsApp-ka. qaybta WhatsApp-ka markaad timaado click baad ku siin doontaa, deeto waxaad u qori doontaa course-ka aad rabtid. saasaa laguguna soo fasixi doonaa, waxaana lagula soo wadaagi doonaa qaabkaad lacagta ku bixin lahayd. marka qaabkaasaad iskoolka uga iibsan kartaa course-kii aad rabtid. haddaba maxaad sugaysaa? hadda iska diiwaangeli oo xirfadii aad rabtid bilow si ay berri ku anfacdo.